hooyo Faadumo Hiire Deshiil waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan magaalada Wardheer horay umayna lahayn khibrad ama aqoon la xidhiidha habka wax soo saarka kheyraadka dhulka loogala soo baxo 3 sano ay ka hor ayay ku hindistay in ay ka faa'iideysato wax soo saarka dhulka ama beeraha waxa ayna duleedka magaalada Wardheer ka sameysay dhul beereed baaxadiisu kor u dhaafayso 300 oo hektaar oo ay ku beertay khudaarta geedgaabka loo yaqaano noocyadeeda kala duwan hooyo Faadumo waxayna markii ugu horeysay ku guuleysatay in ay soo saarto basasha waaweyn oo hore aan looga soo saarin dhulka carrada cas ee dool wax ka weydiinay hooyo Faadumo Hiire Deshiil yaa ku dhaliyay in ay ku dhiirato wax soo saarka dhulka dad dool beer ka beerataan waxba ka heli maysaan waxaan ku dhiiranay dadkana ku dhiirigelinayna annagoo dumar ah inaan waxa ka soo bixinay ilaahayna nala garab galay on maxaan ku dhaafta fiican hadda on ku hamoon karna aan ku joogno maxaa kamid ah wax soo saarada kala duwan ee ka soo baxa dhul beereedka kaashatada dowladeed digir beledweyne loo kano siidkeeda aan ku shubnay imise jawaam ilaa 10 jawaam baa nooga soo go'day waxaanu beernay qare waxaanu beernay babayga aad ninkuba indhihiina ku arkaysaan waxaanu beernay liin dhanaan liin macaan waxaanu beernay qaji waxaanu beernay maxaan ku dhaahdaayay liintii dhanaanayd oo noo soo baxaysa cambe badan baa noo beeran babay baa noo beeran cambuhu laakiin waxa la dhowr sano ku soo baxaa marka waxaan rajaynaynaa isaga oon ka macaashno gaari ka raranay inaan maxaan ku dhaahdo cambaha anaguna uu noo soo baxo inta cimri nagu ilaahay nagu simo ilaahay hadda beertan intaad sameyseen ma jirtaa wax soo saar aad iibkiiseen waxaanu geynaa jigjigaanu geynaa danood baanu geynaa maxaan ku dhaahdaa daratoolaanu geynaa caadaanu geynaa maxaan ku dhahaa galaadi baanu geynaa booq baanu geynaa waana laga gataa lehelow baan geynaa yucub baanu geynaa waxaanu geynaa digirta maxaanu macadir dhamaan digirteeda geynaa waxaanu geynaa digirta oo dadku naga miisto boqolkii koombo ee jawaanka ah waxaana laga gataa 3500 maxaan ku dhahaa marka halka nimanka shaqaalaha iyo gabdhaha haadinaya halkaasaan qarashkooda ka soo saarnaa maxaan ku dhahaa gaariga la geynaya naga qaadaya wax walba halkaasaan iyo nolol maalmeedkanaga dad badan oo shaqaalaha ka shaqeeya ay ka heshaa beertani wax soo saarka kala duwan ka soo baxo biyaha alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladda ceelal noo qoday ceelkaasaan waxaanu ka soo jiidanay tubooyin waaweyn oo maxaan ku dhahaa jigjiga ka soo gadanay markii dambana tubooyin yar yar aan u qayminay oo ayagana jigjiga ka soo gadanay iyaan u qaymin oo ku waraabinaa marka maxaan ku dhaahdaa waan u baahanay ceel dawladdu inay caawiso noo qodo waana kuwana qaar ka mid ah xubnaha shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala iskaashatada dowladeed ee wax soo saarka khudaarta geedgaabka duleedka magaalada Wardheer shaqo abuur badan ka helay iskaashatadan markii iskaashatada la asaasay hadda markii wax ka soo baxeen shaqo badan ka helno dadka inta badan shaqo badan ay ka heleen anigu waxaan kamid ahay darawalka beerta dowladeed gaadiidka darawalanahay waxaan ka qaadaa qaraha waxaan ka qaadaa digirta waxaan ka qaadaa hadii la ku balka waxaan ka qaadaa wax allaal wixii beerta ka soo go waxaan soo qaadaa shaqaalaha beerta la keenayo isla mar ahaantaa la rabo inay ka shaqeeyaan qaybaheeda kala duwan sida digir gurista iyo basbaas qajiga iyo qaraha qaybahaasaan ka kala keenaa meelahan la yiraahdo hadii la ku buulooyinka iyo magaalada gudaheedaba beertan waxaan geynaa gobolka waa 7 degmo 2 degmo waxaan ka ahayn 5 degmo kale waan geynaa kaashatada beerta la dhaho dowladeed dadka ka shaqeeya bana nolol maalmeed fiican waan ka helnaa waxa weeye beerta shaqadeeda xilligii hore shaqalaan bana haddana waxa weeyaan aad iyo aad baan macnaha wax soo saar uga helay shaqaalaha beerta ayaan ka mid ahay inta bacdigeed xilligii hore shaqo ma aanan haysanin beertan dowladeed intii macnaha ay baxday waxa weeyaan shaqo wanaagsan baanu ka helay shaqadaas oo ay ka mid tahay geedkan la yiraahdo qajida sida kan oo kaleeto oo qoyaankii diyaarka ahaa marka in wax lagu darsado oo isagu kaas ah qalaylkii kii la qalajinayay ee bacdigeed la shiidayay sida la warshadeynayay oo ah kii casaa oo isna gees loo diyaarinayo oo weelkiisu gooni yahay ayaanu ka shaqeynaynaa sida digirta kaleeto sida qaraha oo kaleeto sida babayga oo kaleeto iyo basasha iyo geedo fara badan oo ay ka mid yihiin ayaanu shaqadaas waxa weeye aanu haynaa ay tahay
iskaashatadana wax soo saarka beeraha ee bileedka magaalada wardheer ee mulkiilaha ka tahay hooyo Faadumo Hiire Deshiil wax soo saarada hore aan laga soo saari jirin dhulka ciidda ah ee haatan ku guuleysatay inay soo saarto waxaa kamid ah saytuunka, babayga, cambaha, liin dhanaanta, liin macaanta, basasha waaweyn iyo khudaarta geedgaabka noocyadeeda kala duwan iyo raashinba. waxayna haatan hooyo Faadumo ku hamiyeysaa in wax soo saarkeeda kor u sii qaado isla markaasna gaarsiiso gobolada dariska la gobolka Doolo. Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo oo kala warbaahinta deegaanka Soomaalida gobolka Doolo.